ururada bulshada rayidka iyo maamulka degmada Howlwadaaga ayaa ka qayb qaatay barnaamijka Isxilqaan oo ay wadeen askar ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Maamulka degmada Howlwadaaga iyo ururada bulshada rayidka ayaa waxay isku xilqaameen ka qayb qaadashada hawshan ay bilaabeen askar ka tirsan ciidamada qalabka sida isla markaana ay ka wadeen masaajidka isbahaysiga Islaamka ee degmada Waagberi iyo sidoo kale dhismaha darbiga baarlamaanka ee degmada Howlwadaaga. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Amaal Cali Sheekh oo ku hadlaysay magaca ururka socdaalka nabadda oo kaalin weyn ka qaatay barnaamijka Isxilqaan. hawshan Isxilqaan oo ay wadeen ciidamada qalabka sida iyo ururka anagu ka tirsanahay nabadda anagu aan Isxilqaano oo ka qayb qaadano inay dib u dhiska iyo dayactirka iyo nadiifinta wadanka. sidoo kale Cabdisamed Maxamed Xasan oo ka socday ururka rajada Soomaaliyeed ee Hope Generation ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan hawshan Isxilqaanka ah ee ay wadaan askarta ka tirsan ciidamada qalabka sida isla markaana ay kaalintooda ka qaadan doonaan. waxaan rabaa in abaaq u diro dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ka qayb qaataan arrimaha Isxilqaan ee wadanka dib loogu soo celinayo. dalkan anaga iska leh hadda anaga ka shaqaysanin cid noogu shaqaynaysa ma lahan. ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Howlwadaaga Mudane Maxamuud Cali Xasan isagoona sheegay in maamulka degmada iyo dhalinyarada degmada ay ka qayb qaadanayaan howlaha Isxilqaan oo ay wadaan ciidanka qalabka sida isla markaana ay kaalintoodii kaga aadaneed ka degmo ahaan ay ka qayb qaadan doonaan. saraakiisha isugu jira booliska militariga iyo asluubta dhalinyarada kale Isxilqaan meeshaan iyaguna ku jooga waxaan galabta u taaganahay in aan dalkeena quruxsanno inaan dalkeena dhisano inaan dalkeena u istaagno. waxay la tahay abwaanku wuxuu ka soo tirinayay iyo taalooyinku soo tiriyay iyo dadku soo tiriyay inta waxay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkan u soo istaagay oo dalkan xasuustii ay ummadda Soomaaliyeed ay ku reebeen halkaas taalada loogu dhisay. barnaamijka Isxilqaan ayaa waxaa fikirkiisa lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo goobo dhowr ah oo danta guud lagu dhisay ay ka mid yihiin madxafka qaranka iyo sidoo kale xarunta murtida iyo wacyigelinta ee tiyaatarka qaranka. Maxamed Cali Sibriye, warbaahinta codka ciidamada, Muqdisho.